markaasaa si aan naqasuga bixin baa ilaahay uu ku banadaya waa lagu alxamay suuratul fiil makiya aayadeedu waa 5 waxay labadan suuradood isku xiga ka waramayaan suuratul fiil iyo suuratul quraysh qala ilaahay uu ka soo saaray rasuulkii u sharaf badnaa rasuul sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed oo loo quuri laayahay ana gaalada ay u quuri waayeen yahuudiga nasaaro oo dadjiyaalkii buqacadii ugu sharaf badnayd buqacadaha oo dhan oo kacbadii ilaahay oo garan waayeen taas oo dhanba marka labada suuradood waa imtiraan iyo baanisay ilaahay u baanayo waxa rabbi uu leeyahay laba nicmo oo insaanku intuu ifkan jooga ama mar walba uu baahan yahay ayaa labadaba ilaahay u sameeyay taasoo dafcu niqma wa jalbu ni'ma labada qofku aad buu ugu baahan yahay niqmada iyo musiibadu ka cabsan inuu ilaahay ka joojiyo iyo nicmada uu qofku doonayo inuu ilaahay siiyo ummadda hadii labada la siiyo wax ilaahay laga helo aad u wanaagsan weeye marka suuradan horena waxay ka waramaysaa musiibada ilaahay uu ka hakiyay nimanka quraysh ee rasuulkiisii diiday suurada ku xigtaana waxay sheegaysaa nicmadu ilaahay siiyay labadaas marka ilaahay ugu mana sheeganaya dafcu al-mafsada wa jalbu al-maslaha marka qisadan nasku ka waramay ama suuradan suuratul fiil ay ka waramayso waxay dhacday sanadku nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam taariikhdii markaas milaadigu kolka ahayd 511 si kooban hadaynu qisada u guud barnana ay suuradu ka waramayso dagala sheegashada ilaahay iyaga u galad sheeganay ihsaankii ilaahay uu sameeyay inaanay ka mahadnaqay rabbi xusay oo cadawaana itaalba hooy laga joojiyay quraysh kacbaday deganayeen dabcan arabo lama soo xaj jirtay xaj iyo umraba waa lagu iman jiray aad baa lagu soo qasbi jiray in abraahal oran jiray haystay yaman oo xabashi ahaa diinta kiristanka haystay ayaa isaga iyo saaxiibadii ku inaasay ee guri u baydhseenayna in guri dhistabayna mid kaba dheero ka qurux badan aan ku dheerarin sanacay ka dhiseen marka bahal aad u dheero kaniisada ama meel dadka ay yiraahdeen ku soo ururo qulays lagu magacaabay qalansuwada ka dhici jirtay qof marka sidoo kor ugu eegayo ayaa koofiyadan qalansuwada la yiraahdo ka dhici jirtay qulays baa lagu magacaabay markii carabi ay ogaatay arinta aad bay uga xumaadeen cid bay u direen waa la gubay wasaqna waa lagu sayriyay saxariya wixii la mid ah kuwii xogeynteeda aad bay uga xumaadeen boqorkiina way gaarsiiyeen arintii maxaa ay noo soo weeraray buu dhimayno naba halkooda ku soo taaban qalbu soo diyaariyay dhowr iyo 10 maroodi wata oo aad u tababaran waxay u socdaan inay kacbada dumiyaan dhagax baan u qaadi doonaa warkuba ha yaraadeen kolkii quraysh ay maqleen ama waa carabiba ay maqashay ilaa yamantii soke arinta waxay isku dayeen qaarkood inay difaacaan dhowr qolo ayaa jikoon u galay uu la soo kaco uu soo jeeray ciidanka wuxuu ku xisaabtamayaa inuu noqdo ciidana dhexda laga soo celin qaarkoodna waa soo qabtay wuxuu ama waan idin dilayaa ama daliil noqda oo jidkay tusiya sidee u soo socdeen waxay soo degeen aduu qabaylkii qaarkoodna way la heshiiyeen oo sidii qoladii Taif tigaysay oo kale iyo waxay yiraahdeen meelahan sanamyaasha sanamka laata la oran jiray halka yaalay faraytum allata wal uzza marka kaayaganu noo badbaadinayaan sidaan nagu dhaaf talaayalaan nagu dhaaf inuu soo noqonay kama fikireen marka kabalkeedu degay dabeedna wixii xoolo halka joogay urursadeen qaar way qasheen qaarna way qabteen wafdi buu diray Abdul Muttalib oo madaxdii Makka ahaa iyo cidii odayaal joogtay sida qisada marar badan aad aragtay odayaashii way yimaadeen Abdul Muttalib baa horkacay nabiga oogiyay Abdul Muttalibna wuxuu ahaa nin aad u xoog weyn oo qurux badan inkii boqorka uu soo dhaweeyay wuxuu yiri balaalkan agtayda fariiso markii uu soo fariisiyay buu maxaad u socotay 200 halaado adiga cawarto adiga qaaday ayaan u socday buu inaad ii sii deyso qorniyo markii hore soo dhaweyd haybadaada waxaan u arkay buu ayuu ninkii leeyahay kristanka nin mudakaro inta ka miisaaroon meeshii diintaadii aad tirsiimadaadii iyo sharaftaada ahayd baan duminaya adiguna hala yar baad ka hadlaysaa xaq arrinkaagu iska dhaafsan yahay farmeeshan ilaahay baa loo ilaashanaya inuu geelan la ku weydiiyay sidii buu geelay ku kaxay oo lagu sii daayay qoliyo kale oo odayaalaha la socday arrintii ka hadlo waxay dhaahdeen waxa la godan kan oo dhan qaybtan najdiya tihama ayaa hayday inta sokodana tihamada la yiraahdo waxa xoolo degan istixmaalada meel aan ku siinaan kugu laarush ila madaxda dulmiga wala laarush hadiya jeer maadaama mabda ku soconay kaas ka noqo meel laga yaabo buuleeyay ku wadadun ka bayra
هذيك الله يدين كنا والد تشيري عبد المطلب دبنا مكو كل نقضي غير ما كانوا يحلوا بوراء فوق من كان يستعلين كان ميسان كير يستين يستيك حيث كعبد عمر كاده هذا قبص قال اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل السليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن سليبهم ومحالهم أبدا محالك إلى يوقف قرقي سوي العشر لا قرقاق العشر وقال الله كراسك وتلا حينيا يكو كراسك عابديا يعني دي كاحوك بدن أذيك إيو انت كو عابديس تاسو لغا قادنا إيو إن قال هذا مشركين تإلهي ويقاني لكن عبادة يسون بيو شريك يلي وإلهي يوم بيديدين يكالي عابدان أنه رب العالم كان أبو راي أرساقي ويوغاي انك يساقها هروسقي إيار مركوش لما ماشا واد المحصر ليلة ومنا يمزدلسة ودحيسة إنك واحد يسكسو قالي دا خيمالها أمتان دوين كان حجاس اللادس منا ayaa iska soo gaaray imika markii dadkii uu farabatay ee xuduudii min Allah iskala baxay ayaa iyadana loo dhisay bariga hore nabigu markuu maray mana degi jirin waanu ka guclayn jiray oo dhaafi jiray meel umad lagu halaagay weeyeen halkaas uu baalkii fadhiistay kii amrayay iyo wixii oo dhan buu canaantu hanjabo waa loo caga juglayo waa la qoriyay baalkii waa baal rambasay wuu socon waayay meel kale hadii loo jeediyo uu soo laqaaqayo wala wacaynaya halka laakiin xay kacbada hadii loo jeediyo وفريسانيا وعبارية مدة دي أي سيدي أهايين أيها شمبراهنا آيات وآية الماميس ضيرا أبابيل شمبرا كوح أو محاكا بدا كسوكعي لقلت المامين حج بيقود ولا يقع حمامك لو أنا بصدح كنتال وأنوا وينين بيسدته لا الأكبر كان عدس كلا إلا ما حمسك وحيابان أدوكو إسكدهون فولك إيه عرب بخيري إنها الله عليه أفقا إيه اللي بدأتي diyaaradii ilaahay sabaxa hawi kuwaasa soo galay nibayo waxay siyataa dhagax calaamadsan ee daway ku hurgufeen dhagaxani uu jahaysan iyo ashcaar rabbaaniya hagays taani waliba ama maroodi ha qabsada ama qof ha qabsadee badna halkii ku dhinteen dadka badna iyagoo dhaawacana mar rafaadsan ayay dib u noqdeen sidii ku dhinteen nimankii ay soo kaxaysteen ee dhaxda ay ka soo qabsadeen ay yiraahdeen eeriyada tusi oo daliil noqon in kamid ah Nufayl ibn Habib Lawrence وقبائل كعربات قلا كم راح هذا مركي وأركي سيدا وحيين يبالكين وحلمي وبحصلي سجبور بفوري مركا وبد هذا وقبي كوي وكملها بيت كان أين المفر والإله الطارب والأشرب المغلوب ليس الغالب بالحاجة الله بحسم الإله يبقى دون يكون كي قال كهانا ما لقى حق بطا ما حق بطا نقول حقول لكن فقط وذلك ده تاريخ مركي دنبتك وشيء سورنيه عبد المطلب قليه سينا وراي سو تاغنaan halkaas ka sheedaalinay talab maxay ku dambeeyay arintaas sidaas ku dhamaatay iyaguna sidaas ku fashilmeen niman kale ilaahay waa ugu mana sheegtay inuu colka jirid goyn lahaa kacbada tumin lahaa iyagii xoolahooda baabin lahaa ka joojiyay iyagoo isdiiboon itaalhayn bismillaahir rahmaanir rahiim alam tara miyana darkaynin kayfa fa'ala siduu ku sameeyay rabbuka ilaahagu bi ashaabil fiil qoladii maroodiga wadatay ee xawashida ahay alam yaj'al kaydahum shirqoolkoodii miyaanu ka yeelin fi tadliil khalaq iyo baaba waarsala calayhim waxa uu ku sii daayo ku salido ku daray tayran shimbiro abaabila kooxa ah tarmiihim ku sii daynayso ku hurgufaysa bixijaaratin dhagaxaan min sijiil dhooba la dubay faj'alahum rabbuhu ka dhigay ka'asfin bal oo kale ma'kuulin laha fayo xooluhu cuneen الله أنت أوتك كنت أكون صح مركز أصحاب الفيل مروديك سويتين أو تجني كذا ده وقت لا وقع شايف كبران على العرق بها طبعا ده حضارات دون الدولة وينقون بهاي وسوت في وقت لا طبعا عسنا ما هرينه رسول كوحة المامي صلى الله عليه وسلم آخر زمان كوحة إيسي مغلب إيه مغضى عن أركيا من حواشي وكعوادة كسو دولي أو وقدله بد وقدله وحواشي وكعوادة كسو دولي يقلع حجرا دغح قابيه ayaa markay abuula dumin doona taa hore hadii ay sigaan tadambeynay soo gaarayaan ayuu nabigu tilmaamay wax baciidana ma ahayd yahuuda iyo gaaladan geeska Afrika isku dhaawani wax badan bay runtii ka fikiraan arrimaha
وكل يهودنا ده استراتيجية أي لا هيويان إن كعبة دميسه يلا عيدون مريض أفريقيا عيد كلام لا نقطة أو حنيش في سائر كل أوران شراء ألكن يمن تبرجع إسكو هيستين رحلة الماء أنت يا ريد أي هيستين يمن تلاقي قفصة إن يجونا صعود كتير أجاب كي وحلقوا يجي أرتل يرجع إياه وحاصه مسافة فوقين ندى كعبة وجرت مركوا أهرين معتساء والنبي كسي ورمي عليه الصلاة والسلام كيف كان إلهي وكلا طوري شرقوا البوها لكن الله كلا طوري طير يو قرآن كتب المعنى الشمبره مفسرين تعسرقا وقال كل عقلانين تلوت الماما أيها وحي لها وإسكب بكتيريا إلهي وكسر لدي ورد بيدنا باب بإسايم ويان أو تشرمس بالغوصة لدي وشركي عري لكن دوات تكلف بون نقنية نسكو ظاهر كيسي لقوي عيه وما دام قرآن كو الشمبر شاقي الشمبر إلهي وحبو كسر لدي كراه سو تشرمس كما وصل لي كرا marka maxaad ugu diiday iyada ka xoog badan oo muuqatay ترمس kuwaab li birtay فجعلهم كعصف مأكول إنه باطينا مع يسجد دنتي أيا سجان الله حس فجعلهم إلى هاي وحكدجة كعصف مأكول بوكدجة لإلاف قريش بوكدجة سي قريش أصي باقي هات إلافهم باقي أهان شهود أوجد أيكوا أو بابي رحلة الشتاء سفر كقبو جئية والصيف سفر كقليل سي سجسي وطا فليعبدوا رب هذا البيت هعابدين كعبدا إله إسكاله الذي إله سأطعمهم فاشمي إقوديي من جوع جاتشهي سيدرتين وآمنهم كأمن قليل معناها كدتيي من خوف عبسي حتى اللولي بوسيي وعبسي كأب النقدين لا صورات بس نكون دحية لكن ويسكو حرميا وحقا معناه هاو يسكو حرين فلا إلهي وكتشوتشي وصورتها رأي الشيكتية برخضية خير وسيئة تنضم بأي شيء طبعا عصوي إلى علماء المركة إعراض أيانا يتلمامين جارية مجرور كان لإلاف قريشة إنه كما تعلق أيه هالكاهرين فجعلهم كعصف بكيالي لإلاف قريش بكيالي إلاف كنوا سيأسي أرسنا الله وعدوان وكالفردين سيأسي جيران وإبقاء يباقي النقش أيسي هلان وأنا أبابئين إلى إلهي بقى وحكا وضاه هلكا وحو كدغي مهبط الوحي وحو كدغي رجل إنه كصابح رسولك إلهي ومدو دم قارسيني يفتين كان عالم قدم marka xikmada badan baa Ilaahay uu ka leeyay ducadii Nabi Ibraahim Allah aqbalay baa taala marka si arrimaha soo dhameeyo hargalaan awgeed baa kuwa loo baaqiyay si ay isaga sii wataan safarkii marna ay u safrayeen hawd marna waqooyi oo waqtiga hadiya jeer qabowga ah waxay u safrayeen meesha diiran oo xagga Yamana Yaman weligeed beeralayda xadaaradoodu waa qadiim waqtiga sayfka ee kulaylkana dhulka qabow oo Shaama iyo Suuriya xageeda ayay u safri jireen oo iyaguna beeralayda aad ugu fiicnaa iyagu waxay ahayn dad iska geelun wato xoolo dhaqataa oo aan waxba beeranin marka labada jeerba si safarkoodii uu sii jiro hawshoodii iyo ganacsigoodii caadi u ahaado dadkuna u sii deganaado awgeed baa Ilaahay u halay marka liilaafi qurayshin liibqaa'i quraysh si ay quraysh Ilaahay u baaqi yeelo ilaafin baaqi ahanshooda rixlata shitaa'i wa sayf الشتاء وقبوغا صيف كنا وكليلك الرحلة والسفر مركا سفر ككليلك يسفر كقبوغا زي سقسي وطاف بحث هلا ما هي نعموين كإلهي كمك تكون يدي أمني نهلان أدون نهلان حالته دون أي عادي النقط ديني يدوية بمركا سيوها غاقيا وحوض هطوها هذا وحتوص لكن هدي قلب يقحون تاي النقط يقفك أن meeshu degan yahay ba garanay waa musiibo weyn falyabudu falaas waxay tilmaamaysa ma hadii taa la ogaaday laga marqaati furayo iyagoo Ilaahay u mahadnaqaya rabb hada albayt a'budu hada albayt inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah baytka ilaha iskale ay bariyeen ilahay Ilaahay u badbaadi badbaadiyada a'budu alladhi yad'amuhum min ju'in wa amanahum min khawf taasana uu ka raashinay oo gaajadii way ka baxday عبسنا وكأمن الجليو حرمنا من البودتي يجبى إليه ثمرات كل شيء لولا سوق قرآنكم مرر بدن حريرية وجوعنا إلى هاي وشيء خوفنا وشيء
ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف marka cabsidan iyo gaajada islaasiyay hadii cabsi ay timaado kulli xayaatada caadiga ahayd baa ayaa lumaysa dhaqaaliba xumaanaya soo saarkiiba kharibnaya dadna wuxuu ilaahay markaana gaajo saasa ilaahay ugu manashay tabaaraka wa taala marka nicmadaas waxay ku sii baaqi ahaanaysa ilaahay laga tala qaato ilaahay la caabudo adoomo loo noqdo laakiin nicmada hadii ilaahay adoomo in loo noqdo oo la caabudo laga tala qaato diintiisa la raaco hadii la diido waxa dhacaya aayadan aynu ka akhriyeen macnaha ka waramaysa waa magaalo iska aamin ahayd oo maka ahayd oo xasiloonayd oo arsaaqadeedu meel walba uga imanayso istarax markaas ay fakafarat bi an'amillah ilaahay nicmooyinkiisii bay diiday marka nicmooyinka rabbi ay diiday waa nicmadii weyneed oo diinta ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار كفري النعمة يسكبدشين وقال لنا أي إيمان marka hadii dadku sidaa u dhaqmo nicmadu joogi mayso mid dhaqaaleeyo mid amniyo midna joogi mayso kala dii cadaalada laga tago idan halka waxa ka muuqda macsiyada waxa la yiraahdo raadka ay reebaysaa waxa uu yahay in amni iyo arsaaqad mid waliba uu xumaado hadii la ilaalin waayo runtii akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan iyo diinta samxadaha ilaahay dadka u soo dajiyay say nicmada dadku gacan taagtaan ay ku kibraan waxa iman doona in la yaabo runtii marka amniga aynu helay iyo deganaanshaha nisbiga ah xooga aynu helay hadii uu keeno inkii tumanayay uu ka faa'iideysto oo kii dalada khamriga isku shubaya uu ka faa'iideysto oo kii kristanka waday uu ka faa'iideysto oo kii wax aafeenaya uu ka faa'iideysto mid waliba la ilaawa dimuqraadiyada cidla hadli mayso waxa loo sheeganaya marka maamulkii la gaarsiiyay la ilaaw raxm idinka ummadda uga mas'uulay ma ka joojisaan waa dimuqraadiyad haday soo baxdo waa isla qarx haka ilaahay fakafarat bi an'amillahi فأذاقها الله لباس الجوع والخوف marka la ilaahay waxa uu leeyahay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس bariya bariba way aafooyeen dadku waxay sameeyeen baa u sababa liyudiqahum ba'd alladhi amilu waxay sameeyeen baa la dhadhansiinaya hada xanuunkiisa maxaana laga doonayaa la'allahum yarji'un hadayna soo noqdaan haday soo noqon waa inay isdagatiraan ay soo eegaysiyaan gaalka bariya gaalka galbeed wax khayr la filmaayo idan marka arrinka waa in la saxo oo dib la isugu noqdo waxigeena hayna wax liba ku dhan yihiin suurada la ilaa suuratul maa'un iyaduna laba kaafir oo kaleedan bay ka warrami ila kaafir iyo xumaantiisa waa la inooga digaya khatartiisa saylaan ugu lugoyn mid uu cadays midna uu qarsaday labaduba ayaan darada umada ay sabab yihiin horseedda ka yihiin in laga feejignaado bismillaahir rahmaanir rahiim araayta waxaad ka warantaa buu ilaahay alladii gaalka yukadibu bid-diin qiyaamada buu beeninaya aakhiraya abaalmarinay jirto arrinkaasi ma rumaysna fadalika kaasi alladii kiwa yad'u al-yatim yad'u wuxuu riixaya deerifaynaya suxulka ku dhufanaya al-yatim agoonkii miskiinka wala yaxudu dhirigelin ma ya ala ta'ami al-miskiin miskiinka illa raashimo wax la siiyo oo la aamusiyo taas وما تعالى أو ما ديري جرينيو كما فكري فويل هلاك للمصلين بوصقناوي كوتو كان ييجون الذين كواصهم يجوا عن صلاتهم ساهون صلاة دورة كدع صنع صلاة دورة أي كدع سين وأنا يسوتشيرين الذين كويهم يراؤون استصيا ضدك استصيا هديتو كان يعني هدي واحد حنايا ويمنعون وحا أيديان الماعون adeegana way diidaan kan beeninaya qiyaamaha daw gaaloobayla yad'u al-yatim wa astaama qofku kala diina laana ay ku dhacdo naxariis islaam ba ku dhacaysa kala diilaahay diina umadiisa loo naxariisan maayo dadka ugu tamarta daran ayuu oranayaa waan shaqayso wuxuu naga soo eegayaa inuu nagu leeyahay fadalika alladhi yad'u al-yatim agoon ku riixa su'aalka ku dhufanaya wixii sana uu ka qaaday oo haru jeedi maayo وتأكلون التراث أكلا لما بين صامر ولا إحسان سمين مايا ولا نحي مايا إلا ضد مسلمين أقوكم ونحن بعطوه فاشين كلا دي رجالين مايا وما تعلى وحلا بحيه كذا الكسواكا ساسا إلهي ويل يهلاك بويا واحد
كلامه يسقون هلا قالوا حوي قوته كنية dadkii muslimiinta ahaa ee hagaagsanay soo eegaysiinaya laakiin aan iimaanna lahayn islaamnimana lahayn islaamnimadooduna mid tirsan ma ahay muujisanayaan wax iimaan la yiraahdo oo qarsoonina ma jiro waa munaafiqiin iyo si u caabudaan ay leeyihiin ilaahay baan u caabudaynaa alladina hum an salaatihim sahun salaada ayay ilowsan yihiin oo salaada haday tukadaan waaxin waqtiga ilaahay u yiraahuna bistusin awgeedun bay iyo muraad qumsi un mooyaane laakiin salaada cadnimo ay ku jirta maaha salaada iyo waqtigeedu nabigu ka waramay calayhi salaatu wasalaam iyo waqtiga u fiican halkaas dabeedna waxa uu tilmaamay salaada la tukanayo markay qorraxdu sii dhacayso casarkii oo kale ama markay subaxii soo baxayso salaadaasi buu tilka salaatul munaafiq wa salaada munaafiq tilka salaatul munaafiq buu saddex jeer ku celiyay nabigu يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا ويسكف فرديا يا أبو مركزون بقرعهم بهوستا كيريجيا مركز تبدنا قرك الله سي جليس أيو أفر دق استبصع روحك عراض أيو كجارسينيا وسيد الدجاج وكجدك دكسينيا دجاج هرور قرنيا إلهي إن يرمو إن بلان محصيو يجلس تلو كواسي halkay fariisan jireen dadkeena la rag iyo qayl bay fariistaane waxa weeye qof u fadhiyay de wuxuu kaga tagay cibaadadan ilaahay alladina hum yuraun wa istusin marka xaqiiqatan de waxa istusinta la yiraahdaana amal waa waxa dilaw man sam'a an-nas bi'amali sam'a Allah bihi qofka isma qashiya dadka ilaahayna waa maqashiya qaladu qofku cid istusayo isagana waa la tusaawun dadka qofku laakiin hadduu amal sameeyo oo ilaahay dartii uu sameeyo oo ikhlaaskiisa iyo wanaaga aanu cid ilaahay ula wadaajinay aanu jirin ikhlaas ula yimaado oo dadku ay ku amaanaan dib malaha iyadoo dib male waxa uu ku tilmaamay tilka aajilu bushra almu'min qofka mu'minka bushaaradiisa oo soo degdegtay weey oo dadku wanaagiisa ay uga marxaati fureen ويمنعون الماعون منافقة كويسنا ويتشارحين ويفرفرنان درين ودل حدنا فرروي مركب ماعون كانوا أريك تذكر مركب المارمان الإنسان أليف قفك بني آدم كاهي وهو الكنوله إنه عيد وهالشده آتوا قبهاية قفنا بك ما معرمو هتو قفك مدام مالكو وحا الله حدا قفك وهالك الله قصارا ميل قونية الله قاية دوانا عدادة حبس جاز سادرت أشار كانوا كم بارمين أهل كانوا كم بارمين صاحب بدانوا كم بارمين عد والبقين ولا معاملة وبهاي قف سيدا درادت بأيهم منافقينتو شار كم معون كوي كحدان معون كوا حنوار كنيري لين أصحابتي أنا كوف سير جنة إربضة هي ملح دي بيها ضبكة فاشكة حركة ولا أنت بيها على درسنا وحا يراشين على بركة وده تسودي في شامري لك لقادني حلا waxaa soo dhan qofku wuxuu leeyahay anigu maya way dhantay aqalka qofu shahaado salaam cid la hadlimo laakiin ummadda islaamku tarbiyada ay leedahay waxa weeye qof waliba inuu cid ka dhow ka warhayo oo la isku tiirsan yahay oo la isu baahan yahay ayaa runtii takaaful iyo taraahum iyo taraabud baalay dad isxil qaaday oo isku xidhan oo isu naxariistay way oo qofta inta kale uu ku nool yahay lidalik taaish iyadoo arinta ka duulaysa waxay lahayd daan laba jaar leeyahay keebaan hadiyada ku horeysiiya kullu xawaasiinaya ciyigaygu badan kaalintayda ciyigayga maalsiintayda waxay go'dami yaa jaarkan ka bilaabaya keebaan ku horeysiiya hadana wada karin ila aqrabihima minki baaban dadka kugu albaab dhowna wala calaysa